بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة iyo barnaamijkii Mid Maxatay. barnaamijkan Mid Maxatay sidaad ugu barateen waxaan kusoo qaadan jirnay xisaabaad. maanta laakiin xisaab maaha. maanta waa qayb kale oo cusub oo barnaamijka lagu soo kordhiyay. waxaana qayb weyn ka qaadanaya habeynta, duubista, editingka, everything saaxiibkay Mahad Jaamac Koronto. Okay, haddaba qaybtan Mid Maxatay waxaan kusoo qaadanaynaa waxa la yiraahdo waqtiga oo bini aadamka waqtiga uu isticmaalo sida ay tahay. halkan waxaan kusoo gudbin doonaa 6 qaybood uu ka badan karaa inta aan maanta idin soo gudbinayo, laakiin qaybtan waan soo bandhigi doonaa sababta ay u tahay. tan koowaad, soo qaado qalin iyo warqad, qoro 6 waxyaabood. haddaad igu raacdo videogan markaad aragto maxaad leedahay like ayaad saaraysaa, kadibna share garaynaysaa. haddaad igu raaci weysane dee xor baa tahay, faraha ka qaad, iska daaba habaha waxayn waaye. tan koowaad waxay tahay, diyaar waa tahay soo ma ready? waqtiga wuu gaabinayaa, waqtigu wuu gaabinayaa, laakiin waa goorma waqtiga goorta uu gaabinayo? waa marka aad sugayso. waad aragtay waxbaad sugaysaa oo aad isleedahay waxbaa kuu soo socda, markaas waqtigaad eegaysaa. marka waqtiga wuu gaabinayaa koow, laakiin waa marka aad adigu sugayso. qodobka labaad ee waqtiga ku saabsan waxa weeyaan waqtigu wuu dheeraynayaa. waqtiga wuu dheeraynayaa waa goorma? waa marka aad daahsan tahay oo aad ballan leedahay oo aad sugayso mar walba. waa qodobka labaad, waqtigu wuu dheeraynayaa waa markaad daahsan tahay. tan saddexaad oo isla waqtiga ku saabsan maxay tahay? waayo, waqtigu wuu dhintaa, wuu kaa dhintaa adigu waqtigu, laakiin waa goorma? waa marka aad murugo iyo ciil aad ku jirto. markaad murugaysan tahay waqtiga wuu kaa dhintaa. kan afraad ee ku xiga wuxuu yahay waqtigu wuu yar yahay, xoog buu u yar yahay waqtiga, laakiin waa goorma? waa markaad faraxsan tahay, happy markaad tahay, waad aragta goormay dhammaatay, haddaba waxaan bilownay. waa markaad faraxsan tahay waqtigu wuu kaa dhintaa. waa tan afraad. tan shanaad, waqtigu ma dhammaado, maba dhammaadaba. waa goorma? waa markaad xanuunsan tahay oo habeenkii oo dhan dee aad ku jirto xanuun. allah ilaahu yaa ka waqti waa saacadun baad eegeysa, allah waqtiga yaa socodsiiya, allah waqtiga. kan ugu dambeeya ee 6 qodob aan idiin soo sheegay waxa weeyaan waqtigu wuu dheer yahay. kii waxaad wuu dheeraynayaa, laakiin iminka waqtigu wuu dheer yahay. waa goorma? waa marka aad caajisan tahay, waa marka aad adiga dhan boorin tahay, waqtiga xoog buu kugu dheer yahay. haddaba 6daas qaybood waa 6dii qaybood ee waqtiga ku saabsanaa. haddaba maxaa laga faa'iidaya? maxay tahay ujeeddada iyo waxaan aan u soo qaatay inaan soo bandhigo maxay tahay? waqtigu waxa weeyaan waqtigu wuxuu ku xiran yahay xaalad dareen ee aad adigu ku jirto. markaa xaaladda dareen ee adigu ku jirto ayuu waqtigu ka waramaa. markaad faraxsan tahay, markaad murugaysan tahay, marka aad wax sugayso, marka ay wax kaa maqan yihiin, waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay jawiga adiga kaa muuqda. jawiga adiga kaa muuqda ayay ku xiran tahay. dharka aad xiran tahay, physicalkaaga uu ku xiran yahay, instructorka physicalkaaga, qaabkaaga adiga marka aad labisan tahay, xaaladda aad ku jirto ka warramaya waqtiga. marka aad faraxsan tahay, xaaladda aad ku jirto, wejigaaga baad ilka caddaynaysaa. ilaa qofka markiibuu ku garan karaa, laakiin saacaddu isma beddesho. saacaddu mar walba waa sideedii. wax walba oo saacadda ku saabsan, waqtiga ku saabsan isma beddelaan. haddaba waxaad ka faa'iidaynaa waxa ay tahay waqtigu isma beddele ee jawiga aad ku jirto adigu ayaa isbeddela hadba xaaladda aad ku jirto.
marka lixdaas qaybood barnaamijkeena miid maxatay qaybo badan oo sidaana aynu soo gudbin doonaa oo wax laga faa'iidi doono insha allahu tacaala tanan waa qaybtii ugu horreysay oon xisaab ahayn oon soo gudbin doono waxaa barnaamijka door weyn ka ciyaaray saaxiibkii maad jaamac koronto iyo isku dabridka waad arkaysaa suulkiisa wuu mahadsan yahay barnaamijyo badan ayaan soo wadnaa insha allahu tacaala oo ku saabsan miid maxatay aad baad u mahadsan tihiin tan iyo barnaamijka ku xiga miid maxatay insha allahu tacaala waa siciid xagaa afrax idiin soo diyaariyey iyo saaxiibkii maad jaamac koronto oo qayb weyn iyadana doobista iyo editing ku lahaa idinkaga tegaya sidaa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu